maamulka degmada Baydhabo ayaa maanta bilaabay ololo lagu hagaajinayo qaar ka mid ah xaafadaha Salaame iyo Horseed kuwaas oo ka mid ah xaafadaha ku yaala degmada Baydhabo. Qaar ka mid ah haweenka ku nool labadaasi xaafadood ayaa muujiyay dadaalo ay ku muujinayaan qashinka iyo sidii la isaga fogeyn lahaa. Gudoomiyaasha labada xaafadood Horseed iyo Salaame ayaa qayb ka ahaa isla markaan xaafadaha kale ugu baaqay inay ku dadaalaan nadaafadda kuna daydaan labadani xaafadood dadaalkan ay maanta ay muujiyeen. waliyeed anka maasana degmada iyo maamulka xaafado iyo bulshada oo ibo jeeshalduum walilena walay nadaafada lan kasto group ay dhow kale waajiba ka tahay qof shakhsi ah ka eeday oo maamul ka eeday oo lan kale ka eeday wal ku faylay boolin Salaame iyo meel walilan haaga jaray balbalan haaga jari balbalilan haaga jari lay waqti jalay dhamanay laakiin wali in sheegana bulshada reer Baydhabo ani lan kasta baabura qaadahayd kambaniyada la hansuubi degmada hasuubidi walilana lan kasta gaashanka idaka diyaarsoy amba foosto suubsoy idaka gubsoy amba walilana meel baaburto wala ku qaadayo bulshada qiimo jeeshalduun sida magaalada hoos oo baaburto lagu ka qaadaw ani aday jeetiya waajibkiya uun shay biyoojowna ka dhajan Salaame leeyahay marbadan nadaafad oo la suubi waana la nadaafi lan walba kashinka madiis idisku suubsada idiska hakamaysada amba meel bartilmaamada loorka didiyo baawri jaran oo kashinkan la ku kuusay dawladda hoos diyaaradi ya jaran madiad kashinka loorka didiido wadada gowjaha dhig baawrka ko qaaday beesmal ko qaada antum dib jeelin aan weelas waayo idita kashinka ku kuusas booliya ka deediya safaayada duraas walaaga sa duraas udurkana may buadi idaha kul hortay qabta adi hatan fadhigan ku qoyayd waayo meelaha dadka shibti bara unaga mare widaadka mare widaada maraas walaalka mare. Gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo Xasan Macalin Biikole iyo gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Isaaq Maxamed Cali Tegaab ayaa bulshada ku nool degmada Baydhabo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafadda isla markaana uga digay in cid alle cidii dhigta qashinka goob aan munaasab ku ahayn laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan. oo inaga la ka gameeyay la qashin markii la isku lubaho marka arintaasi arin fool humo arin faylama qashinkan kanga ay bahlan la ka shaqeeyay adil ka aragu oo shaqaale inta qashinka shibaas laro way qobday way hiree way dabakaha meel alla meeliyo ku qaadan hoo muqaayata email kas meelata la saada hoo muqaayataan wal hiree goob ganaas oo qashinka la qaadi lanka hoob shaqaalka lihiru oo han dhiibi gadaala limbaha usun way hiree kan han dhiibin way qobday marka inta adin qashinka ka shibto lan kalaan arday qashinka aad ka shibti qaado masuurta galaas arintaas waa ka digaan mar damba degniyaasiyaan hadii ay weelaan dhibaatada ka qoyta masuul ma kiino marka saasad dadaalinka jara saasa shaqalinka jara nadaafadii magaalada muharbaja la ka jara dawladii ay shaqeeyaan shaqooyin kale amniga ka shaqeeyaan mas'uuliyadna way ka shaqeeyaan meelaha subahay in meelaha subahay oo qashin la hata la taaganaana ma laata farsa marka dadweynaha meel kaalmo la ka faday dawladda ka kaalmayaan oo nadaafadii ka dadaala caafimaadka ka dadaala faday udurada dareeranta adduunyada aragayta udur badan ka dareer corona dareer marka dhibaatooyinkan waxa weey waa in garanaysan shacabka oo dhaafa walaaw. Maamulka degmada Baydhabo ayaa mudooyinkan dambe dadaalo lagu hagaajinayo degmada Baydhabo ka wada gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Maxamed Xuseen Jito, dalka TV, Baydhabo.